kusoo dhawow Qaraax Tube fadlan subscribe dheh waxaad ka helaysaa macluumaadkii ugu dambeeyay kubadda cagta iyo sheekooyin kale dhammaan asxaabta la socota channelka Qaraax Tube waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda iyo waxyaabaha ay saakay qoreen wargeysyada kooxda kubadda cagta Chelsea waxa ay ku kalsoon tahay inay aqbali doonto 65 milyan hadii ay Barcelona gaarsiiso qiimaha ciyaaryahan William inkastoo Manchester United ay ku soo biirtay 29 sano jirkaan loolanka loogu jiro Blues haddana ma doonayso in Manchester ay siiyaan William sababtoo ah labada kooxood waxay ku dagaalamayaan booska horyaalka Premier League Blues waxa ay sugi doontaa xiisaha Manchester ay gaarsiin doonto sidoo kale ciyaaryahan Antonio Martial sababtoo ah Chelsea waxay rabtaa Martial inay hesho kadibna iyadana William ay Manchester United kula xajooto United tababarada Jose Mourinho ayaa la kulmi doona madaxiisa fulinta Edward Ward kaasoo ka rabo u yaraan lacag uu suuqa ku galo inuu siiyo difaaca dambe ee kooxda Manchester United Marcus Rojo 28 sano jir ayaa laga yaabaa inuu isaga tago kooxda Manchester United hadii Jose Mourinho uu keensado Harry Maguire Liverpool ayaa heshay fursad kale ay ku heli karto Nabil Fekir 25 sano jirkaan Lyon kabtaanka oo ah ayaa dhowr jeer Liverpool dalab ka gudbisay balse waa laga diiday ugu dambeyn kooxda Reds hadda waxa laga yaabaa ciyaaryahankan inay ka niyad jabeen si walba kooxda ka dhisan Anfield ayaa hadda basigtaas wada hadal kula jirto oo ku doonayso ciyaaryahanka difaaca dhexe xidiga lagu magacaabo Vida kabtaanka xulka qaranka dalka Ingiriiska Harry Kane ayaa lagu ooriyay kadib markii ciyaaryahankan Spurska lagu arkay isagoo sameynaya isagoo saxiixaya qaar kamid ah maaliyadaha kooxdiisa ee kooxaha soo horjeeda sababtoo ah xidigan ayaa hadda fasax u jooga qaar kamid ah jasiiradaha wuxuuna doonayaa inuu waqti fiican ku soo qaato halkaasi Barcelona difaaceeda dambe Yara Mina ayaa laga yaabaa inuu ka tago kooxdan kuna biiro kooxda ka dhisan Premier League ee Everton tababarada Marco Silva ayaa doonaya inuu soo qaato ciyaaryahankan Colombianka ah oo muhiim loo arko Juventus waxa lagu soo waramayaa inay 30 milyan ku soo qaadan doonto ciyaaryahanka difaaca dhexe ka ciyaara Alex Telles oo Porto ka tirsan kaasoo Braziliana inkastoo kooxdiisa ay rabto in la siiyo 40 milyan Man City ciyaaryahankeeda qadka dhexe ee xidiga reer Alexander Zinchenko oo 12 sano jir ah ayaan doonaynin mustaqbalkiisa kooxda inuu ka hadlo sababtoo ah ma boogaba meesha ay City gaarsiin doonto xidigan hadii ay fasaxayaan iyo in kaleba waad ku maasantahay daawashada videogan fadlan ha ilaawin like iyo share kadibna inaad subscribe mahadsanid